السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قال جميل كستو الدنيا كتشوكتان وحاك سلامتي سلامة إسلامك السلام عليكم وحن إدين رجيني يا داود يا لما سان عفمات قبينا يدكون اللماتين إن عدو عفمات قبطان إن وأدو ولي بمانتين وأنا سنتي وأدو فرح سنتين هذا بمرك أنت هلا ما دوم أنت وحن كهل دونا محامي أنت برها بالشدة كتاجن إن هذا بقى ما أنت وحن برها بالشدة كتاجن إن رارتانك عمق حتانك إن لاسعانود dadka laga rarayo hadaba saa ognahay ilaa shay tore social media way haysatay iyada oo isku si looga hadlayo hadaba bal waxay ka hadli doonaa si ka yar duwan hadda waxa hadlay hadii aan hadalka idin hormariyaba salaadin kamid ah in salaadinta gobolka Sool iyo qaal iyo dad noocaas sheeganaya marka aniga ma garanayo maadaama oo la saarad ku noolayn ma garan kara dadkan waxay yihiin laakiin waxay hadda sheeganayaan inay yihiin uqaash iyo salaadinta gobolka Sool bal waxaan doonayaa hadaladooda maadaama ay dad waaweyn oo odayaal oo maamulsto oo salaadin u eeg ay yihiin kulli weyn yihiin aniga shakhsi ahaan baan aqooni bal waxaan doonayaa hadalkooda inaan halkan kamid ah qayb kamid ah aan idin kula wadaago maadaama ay baraha bulshada ku jirto dadka inta badan waxaan ka dambeeya in la raro dadkaas waa reer laascaanood bal hadaba maadaama ay dadkan sheeganayaan uqaashoodii waxaan doonayaa inaan idin tuso hadalkooda bal asxaabta qaaliga hataa channelka cusub horta saar subscribe videoga like saar si meel fog gaadho commentingana bal waxay aragtada igula wadaag haddana waxa idin daari doona muuqaalka goobta isku yimi ee gudida reer laascaanood waxaanu halkan baaqan u sii doonaynaa dibkii ka dhacay gobolka laascaanood annagoo ah gudidii reer laascaanood uqaal iyo culimo iyo codkar isku jira ee la qabtay ee la yiri dhibaatadii halka ka dhacday ka soo taliya annagoo ku fadhina waxa dhacday wasiiradii iyo culimo iyo rag la socday inay qiimayn gudidii iyo culimadii iyo garaadadii iyo dad markuu leeyahay annagoo u fadhina waxa weeye dadkii lagu dilay laascaanood ee mas'uuladaha in arrinkoodii anagu ku jirno ka wada qaabkaas ayuu ka wada hadalka uu ahaa madaxda laascaanood inaan lagu qiimeyn fadhigii iyo taladii waxa dhacday in la sameeyay gacan dhaafka adduunka dhan hadirubiya oo meel walba ka dhacay gacan dhaafka adduunka dhan hadirubiya oo meel walba ka dhacay taas oo loo fadhiyay ugu horeysay oo ay ahayd tashigaasi dhibaatooyinka ka dhacay laascaanood kii ugu dambeeyay iyo kii ugu horeeyay sidii looga wada tashan lahaa haday tahay maamulka dalka xukuma haday tahay shacabka deegaanka degan dhibaatadaas oo ku koobnayd gobolka Sool oo aan qusayn dalka intiisa kale in dawladda meesha xukunta iyo shacabka ka tashadaan waxa ahayd oo talada lahaa dadka deegaanka haday garaad tahay haday caaqil tahay haday culimo tahay in la tashado la weydiiyo waxa ka jira wadanka waxa dhacday nasiib darro inay saan u dhacday waxaanu sheegaynaa dadka Soomaaliyeed inaan anagu raafin dadka inaan shaqo ku lahayn inaan waxna laga weydiin inaan talo iyo tusmid ku lahayn hadii ay ku wada noolayd maamulka Soomaaliland ayaa wuxuu la yimid wafti laga soo diray magaalada Hargeysa annaguna waxaanu ahayn dadkii gobolka Sool ee wax garadka ahaa oo ammaanka ka shaqeynayay ilaa iyo maalintii magaca laascaanood la bixiyay ammaanka ka shaqeynayay baanu ahayn shir baanu fadhinay talaanu fadhinay dajinta laascaanood iyo ammaanka laascaanood iyo nabadgelyada ka shaqeynanay ka bacdi iyadoo aan waxba nala weydiin oo wax garadkii gobolka Sool la weydiin waxba ayaa maamulka Soomaaliland wuxuu sameeyay inuu dadkii deganaa lagu guro baabuur dabada loo geliyo habeen madow dabada loo guro waxba nalaga weydiin waxaanu sheegaynaa inta afka Soomaaliga ku hadashay intii diinta islaamka sheegataba inaan hawsha annagu wax aan ku lahayn ayaan jirin aanu ka xunahay aanu aad iyo aad uga dhibaataysanahay maamulkuna uu waxba naga weydiin arrintaasuna arrin aad iyo aad dhibaateedeeda u tahay waana arrin la dadajiyay oo si degdeg loo qabtay baa arrinta aad baan uga murugaysanahay waana diidanahay waana ka xunahay waxaan u sheegaynaa Soomaalidu meel kasta caalamka iyo daafaha dunida ka kala joogto arrinta inaan anagu wax tala ku lahayn oo talada aan shaqo ku lahayn baan halkan ka cadeynaynaa waxaan u sheegaynaa gobolka Sool cid kasta oo mas'uuliyiin oo ku nool dadkaasu waa si qaxaba loo raray qof qoro shay qaati ma lahayn dadka alaabtoodii iyo hantidoodii guriyay lahaayeen baabuur bay lahaayeen hanti ganacsi bay lahaayeen qaar baa xoolo nool lahaa digaaga u yar xoolaha nool qaar baa waxay lahaayeen boqol digaaga qaar baa waxay lahaayeen konton ariya dad magaalada degan bay ahaayeen hantidoodii iyo dhaqaalahoodii
waxaan aad uga codsanaynaa dadka gobolka Sool ku nool ee mas'uuliyiinta ciday doonaanba ha ahaadeen in hantida gacanta lagu dhigo dadka hantidooda gacanta loogu dhigo. Assalaamu calaykum. bal hal iyadoo gudida magaaladuna ay nala ogeyd oo garaadku uu ka qabtay shir halkaas oo dadku ay ku soo kaceen oo buuq badani ka jiray isagoo garaadku xal u arkayay in hawshaas gudidaas bal loo diro lana joojiyo kacdoonka magaalada lagu dejiyo kadib waxaanu fadhinay muddadaas dheer oo aanu kaga xajoonaynay kaga hadlaynay munaaqashaynaynay bal sidii xal loo raadin lahaa marka wafdida ka timi Hargeysa oo xukuumadda ka socota kulay markii ay timi kadib waxa soo baxday in dadkii la raray annagu marka dadka la rarayo waa dad deegaanka Laascaanood in badan deganaa caruurihii ku dhashay baa xaasas ku yeeshay marka waxaanu leenahay dadka haddii xitaa xukuumaddu u aragtay in la raro waxaanu leenahay sida loo rarayna sida xaq waafaqsan oo sax ma waxaanu leenahay insha Allah ta'ala haddii la rarayo ay sida xitaa ka fursan ayagu u arkeen sidaas waxay ahayd inay sidaas ka bedelan u raraan waxaanu leenahay insha Allah ta'ala xuquuq bay leeyihiin waa dad muslimiina waa dad Soomaaliyeed xuquuqda Soomaaliya oo dhan way isdhex degan tahay waa wada degan tahay waxaanu leenahay xuquuqdooda waxa kamid ah qofka muslimka dhiigiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa iyo sharafkiisa waa ilaashan yahay intaba in qofka loo dhawro waa waajib marka oo la ilaaliyo marka isagoo haddana Soomaalinimadiina arrin khaas oo xaq kale noqonaysa waxa weeye dadka sida loo raray aad baa gobolka uga xun yahay gudideeda fadhidayna waxa weeye wax talaana kuma aanu lahayn waxna la kama weydiin oo lama oran hawshaas ay jirtay iyo gudida iyadoo aanu fadhino oo shir u fadhino aanan gudigaana kulmin ayaa oo aanan golada madaxda timin aanan is arkin ayaa waxaan ku warhelay iyadoo la rarayo oo boolis lagu wareejiyay intaas marka aad iyo aad arintaas looga danqaday sida la sheegayna hantidoodii waa kala firidhay meel walba waxa kaga kala luusan caruuraa jira masaajidada la keeno hooyooyinkoodii iyo aabahood dadkii la raray ay ku jireen arrimahaasina waa arrin aad looga naxo afar ciyaal xalay masjid Hudayya la keenay oo la ciyaaladaas aanu haynaayo reerahoodii ka qaxeen marka waxaan leenahay waa arrin oo aabahood iyo hooyadood laga qaaday waa arrin aad u naxdin badan marka insha Allah xilkuna iyaga mas'uuliyiintii sare ah oo gobolka xukuma nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun 'an ra'iyati qofka isaga laga xisaabtamaya waxa uu xumeeyay qofka madaxda ah isaga madaxa ku qaadanaya caruuraha yar yar iyo dhibaatada cidii u geystay isaga saaran tahay anagu marka isku soo dudub asxaabta qaar muuqaalku inuu si dheeraada maaha oo aan si erina uun dadkan waxay cadeeyeen in aanay ka mas'uul ahayn qaxitaanka dadkaas aanay waxna ka ogeyn reesul bi cadeeyeen soo kale dad badan oo reesul hadlayo taliyaalana waa maqlayeen adigu asxaabta qaaliga arrinkaas halku ku dambeeyo weyn eegi doonaa saad ula socoto channelka sar subscribe videogana like sar commentingana waxa aragtida iyo wixii kala gudboon igu reeb halka